السلام عليكم. دقيقة كهر waxaa hadlayay hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrullah oo qudbadiisii maalinkii shalay la filayay laakiin maalinkii shalay ay dhacday hadana dhacdadii markaasi weerarka lagu soo qaaday telefoonada ama isgaarsiinta loo yaqaano walkie talkie ama halowga haddaba maanta oo khamiis ah ayuu Xasan Nasrullah hadlay qudbadiisii waxay ahayd mid la soo duubay laakiin caalamka looga dhigayay in markaasi si toos u hadlayo maadaama Israa'iil ninkaasi uu yahay yoolkooda koowaad ay suurtagal tahay ayaa leeyahay in la qarajiyo haddaba qudbadii Xasan Nasrullah oo aan si toos u daawanayay ayaan intii aan ka gaaray waxaan idinkaga dhigay ama idin soo koobay nuxurkeedii Xasan Nasrullah marka koowaad wuxuu u mahadceliyay dadkii dhiigga u shubay dadkii ku dhaawacmay halkaasi sidaas oo kale wuxuu u mahadceliyay dadkii ugu deeqay gawaarida iyo baaskiiladooda iyo wax walba oo dadkaasi loogu gurmadi karay oo isbitaalada loogu gaarsiin karay sidaas oo kale wuxuu u mahadceliyay dhaqaatiirta isbitaalada iyo farmashiyalka oo dadkaasi si bilaash ah dadka ku daaweynayay Xasan Nasrullah wuxuu yiri wuxuu aad ugu mahadceliyay dadka Lubnaan ku nool oo dhan wuxuu u mahadceliyay hogaamiyaasha kuwa diinta kuwa siyaasadda wuxuu yiri waxay naga caawiyeen wax aanan dadkeena ay muhiim ay ahayd inay iska caawiyaan sidaas oo kale wuxuu aad ugu mahadceliyay dawladda markaasi uu xusay sida Ciraaq iyo Iiraan uu ku sheegay inay gurmad caafimaad ay u soo fidiyeen gaar ahaan Iiraan uu aad ugu mahadceliyay oo sheegay in diyaarad ay u soo dirtay sidaas oo kalena uu rajeynayo in maalmaha soo socda ay diyaarado kale ay u soo diri doonaan inta kadib Xasan Nasrullah wuxuu qiray labadii maalmood ee ugu dambeysay ee Talaadada iyo Arbacada markaasi weerarka lagu soo qaaday qalabka isgaarsiinta loo yaqaan pagerska iyo sidaas oo kale isgaarsiinta loo yaqaano walkie talkie-ga ama halowga wuxuu sheegay inay ahayd dharbaxyo aad u kulul oo ay kaga timid dhanka cadowgooda wuxuu qiray inay ahayd dharbaxyo kulul oo cadowgooda ku dhacday laakiin cadowga ujeedadooda inay ahayd muddo 2 daqiiqo ka yar inay markaas ay ku laayaan dad gaaraya 5,000 كان العدو الإسرائيلي يريد أن يقتل ما لا يقل عن 5,000 إنسان في دقيقتين dadkaas oo sheegay inay dhammaantood wuxuu sheegay qalabkan loo yaqaan pagerska ama halowga dadka Lubnaan ku nool ee sidaas oo kale Suuriya ku nool badankooda ay adeegsanayeen wuxuu yiri waxa lagu dhex adeegsadaa ayuu yiri suuqyada waxa lagu dhex adeegsadaa ayuu yiri isbitaalada farmashiyaasha gawaarida dhexdooda guryaha ay yaalaan waxa haysta ayuu yiri dad gaaraya ilaa 5,000 marka cadowgeena Israa'iil waxay doonayeen ayuu leeyahay in 5,000 ay ku laayaan muddo 2 daqiiqo gudahood sidaas ayuu qorshahoodu ahaa ayuu leeyahay daqiiqada gudahood inay ku dilaan intaas kadib wuxuu ka hadlay wixii maalinkaasi ku dhacay inay ahayd dharbaxyo xun oo soo gaartay Xisbullah iyo dadka Lubnaan maxaynu ku magacawnaa ayuu markaasi yiri maxaynu ku magacawnaa wixii maalinkaasi dhacay ma waxaynu dhahnaa xasuuq ay ahayd ma waxay ahayd xadgudub ayaynu ku magacawnaa ma waxaynu ku magacawnaa waa argagax ayaa weerar nagu soo qaaday wixii dhacay wuxuu sheegay inay ahayd mid inoo cadeynaysa in Israa'iil ay doonayso inay diyaar dagaal u tahay waxay taa inoo cadeynaysaa Israa'iil weerarka ee nagu soo qaaday ayuu yiri in Israa'iil ay doonayso in ay weerar dagaal aad u culus inay nagu soo qaado ay diyaar u tahay taas ay inoo cadeynaysaa ayuu leeyahay wax kale aan ku magacaawi karno ma jirto maadaama ay qorsheeyeen muddo 2 daqiiqo gudahood ay doonayeen ama ay qorsheynayeen inay ku laayaan dad gaaraya 5,000 Xasan Nasrullah oo ah hogaamiyaha Xisbullah wuxuu sheegay qalabka isgaarsiinta pagerska loo yaqaan ee maalinkii Talaadada qarxay in qaarkood ama badankooda ay markaasi suuqyada aysan oolin ama markaasi aysan shaqeynayn wuxuu sheegay haddii dhammaantood ay wada shaqeyn lahaayeen ay suurtagal noqon lahayd Israa'iil in dhibaato xoogan ay gaarsiiso shacabka Lubnaan marka waxay doonayeen ayuu leeyahay 5,000 oo qof inay daqiiqada ay ku dilaan haddaba wuxuu yiri sidee ayaan wax u baarnay sidee ay wax u dhaceen wuxuu sheegay natiijo ayaan ka gaarnay wixii dhacay baaritaan ayaan sameynay waxaynu baaritaan aynu ku sameynay shirkadii aan ka dalbanay sidaas oo kale waxaynu baaritaan aynu ku sameynay shirkadii keentay shirkadii dalabtay shirkadii qaybisay iyo dadka markaasi howlahan qaybinta shaqada ku lahaa
dadkaasi oo dhan baaritaan ayaynu ku wadnaa welina waynu wadnaa ayuu leeyahay natiijo ayaa markaasi ka helnay arrinkaasi sidaas darteed baaritaankeeni wuu sii socon doonaa run ahaantii wuxuu sheegay jab xoogan oo taariikhda inoo gashay ayaa inagu dhacday ayuu yiri xasan nasrullah labadii maalmood ugu dambeysay jab xoogan ayay inoo geysteen ayuu leeyahay gumaystaha Israa'iil insha Allahna waynu ka soo kaban doonaa waa sida hadalkiisu u yiri wuxuu sheegay in dharbaxyo kulul ay ku dhacday iyaga ayna diyaar u yihiin inay ka soo kabtaan labadaas dharbaxyo ee ku dhacday labadii maalmood ugu dambeysay Talaadada iyo Arbacada inay diyaar u yihiin inay ka soo kabtaan dagaalka sidiisa wuxuu sheegay inay maalin ay ku guuleysanayso maalin laga guuleysanayo wuxuu sheegay maalinkii Talaadada iyo Arbacada in laga guuleystay wuxuu sheegay marka in aynu rajaynayno in guul aynu ka heli doono xagga Ilaahay maalmihii Talaadada iyo Arbacada waxay noo ahayd ayuu leeyahay maalmo culays daran ina soo fuulay oo ina soo wajahay waynu ka bixi doonaa ayuu leeyahay imtixaankaasi insha Allah darbaxyadii weyneed ee aadka u kulleed marnaba hoos inooma dhigi doonto ayuu leeyahay awood ayayna ka sii qaadnay waynu isu sii diyaarinaynaa cadowgeena sidaas ha ogaadeen ayuu sheegay run ahaantii khudbadii xasan nasrullah waxay ahayd mid aad iyo aad u dheer waxa uu soo hadal qaaday in muddo maalmo kadib ay noqon doonto dagaalka magaalada Gaza ka socda muddo hal sano ah sidaas darteedna Israa'iil dagaal aad iyo aad u xoogan oo ku soo wajahan yahay xasan nasrullah wuxuu sheegay inaysan marnaba dhageysan doonin wasiirada cadowga Israa'iil iyo sidaas oo kale madaxdooda aad iyo aadna ay ugu cabsadaan iyaga Xisbullah waxa uu mahad celinaya ayuu leeyahay jabhadaha ka dagaalamaya dhanka Yemen sidaas oo kale kuwa Ciraaq ee ka dagaalamaya iyo dagaalyahanada ka dagaalamaya gudaha magaalada Gaza xasan nasrullah waxa uu markaasi challenge uu la galay ama car iyo wir uu markaasi ku yiri ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga oo maalmihii ugu dambeeyay qorsheynayay dadka ku nool waqooyiga dhanka gumaystaha Israa'iil oo gaaraya ilaa 60,000 dadkii ka qaxay dhanka Israa'iil inay dib ugu soo laabtaan xasan nasrullah markuu wuxuu yiri car iyo wir hadda ayaan challenge idinla galaya ayuu leeyahay haddii aad awoodaan dadkaasi inaad awood ku soo celisaan yaa weylakum maanta ayay noo taala ayuu leeyahay haddii aad kartaan soo celiya وأنا أقول لنتنياهو ولجالنت ولجيش العدو ولكيان العدو لن تستطيعوا أن تعيدوا سكان الشمال إلى الشمال لن تستطيعوا أن تعيدوا المستوطنين المحتلين المغتصبين إلى المستعمرات في الشمال وافعلوا ما شئتم لن تستطيعوا هذا التحدي كبير بيننا وبينكم haddii aad rabtaan nabad in dadkaasi ay ku soo laabtaan nabad ay ka dhacdo Israa'iil guud ahaan waa in aad ka joojisaan dagaalka magaalada Gaza ee ciidankiina ay ka wadaan waa hadiiba aad doonaysaan in gobolkan oo dhan nabad ay ka hirgasho marka xasan nasrullah wuxuu sidaasi oo kale uu sheegay diyaar inaan u nahay dagaal walba oo ciidamada Israa'iil ay nagu soo qaadayaan mar walba ciidankeena ay diyaar u yihiin awood aan u leenahay inaan iska caawino wuxuuna u sheegay Netanyahu haddii aad doonayso ciidankaaga in jahannamo iyo naarta inay ku dhacaan u soo dir dhanka Xisbullah haddii aad u soo dirto wuxuu sheegay dhanka Xisbullah inay naarta jahannamo ay gali doonaan ama ay ku hooban doonaan run ahaantii khudbadii xasan nasrullah qaybo badan ayuu markaasi kaga hadlay laakiin waxay ahayd khudbad la soo diyaariyay oo la soo adidgareeyay kadibna si live ah loo tabinayay maalinkii shalay ee Arbacada ayaa la rajeynayay xasan nasrullah inuu hadlo laakiin khudbadii uu maalinkii Talaadada uu duubay ee maalinkii Arbacada uu duubay waxa ka soo soko martay isla maalinka Arbacada ahayd inay dhacdo kale ay dhacday waana tan keentay in maanta oo Khamiis oo khudbo cusub uu duubo khudbadaasina si toosa warbaahinta Lubnaan looga tabiyo ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka higaada luqadda carabiga iyo culuumta shariicada isqoristu way socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 63477 956 eber